geesta kalena ururka wadajir Somaliland oo ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa lacag gaadhaysa $1 ugu soo deeqay cisbitaalka Monday ee magaalada Burco taasoo u soo wakiisheen oday Cismaan Ismaaciil Cali oo ka mid ah duqeyda Togdheer kuna wareejiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasiin ayaa cadeeyay in lacagtan ay soo gaadhay maamulka cisbitaalka Monday isla markaana ay sheegeen inay ku filin doonaan meeshii ku haboon hablahaas ay ku soo hagaajiyay hablaha wadajir marka inta dadka leeyahay hablaha uma hadaqayna lacagtooda waata wakiilka lacagtani Cismaan Ismaaciil Cali iyo jaamac oo kamid ah qurbajooga Norway ee Somaliland kaalmo weyn ka geysta cisbitaalka Monday ayaa amaan u soo jeediyay maamulka cisbitaalka hablaha soo diray in la yiraahdo huda ayaa madaxa ururkoodana waxa la yiraahdaa wadajir Somaliland iga guddooma Ingiriiska hablahaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr badan iyo xasanaad siiyo وانا ما سيء يسدوها قبل كتب درع دكتور عبد ياسين ويسوون العقد قدومي iyo Jamaal Xinwaalo ila fadhiyo isaguna guddiga caafimaadka waxaan halka u dhaafayaa oo kaliya wax weeye anigu waxaan ahay reerno qurbajooga waxaan muqaabilsanahay inaanu xagga dibadda ka soo caawino dhakhtarka Monday waxa aan aad iyo aad ugu faraxsanahay hablahaas sharafta badan ee gartay inay dadka amaanka ka xanuunsanaya waxaan ku boorinayaa bulshooyinka islaamka meel ay joogaanba gaar ahaan gobolka Togdheer u dhalatay ama Somaliland oo dhanba dhamaantoodba in ay ka soo geystaan wixii caawimo ay ka soo geysan karayaan mar walba sidaas waxaan u furi doonaa akoon dibadda insha Allah waan qorsheeyay wadno cisbitaalkan Monday ee Burco oo lagu dabiyo dadka maskaxda ka jiran ayaa deeqdan noqonaysa mid wax weyn ka daboosha baahiyaha ka tagan cisbitaalka